waxaa maanta ka dhacay degmada oo ka tirsan gobolka Saraar barnaamij salmiya kaasoo lagaga soo horjeedo xukunkii maalintii shalay ahayd ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku xukuntay 5 sano oo xariga boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow dadweynaha degmada oo gobolka Saraar oo isugu jiray uqaal waxgarad bulshadeynta ku dhaqan deegaanka oo goob fagaaraha isugu soo baxay ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana ugu baaqeen in si degdeg ah xorriyadiisa loogu soo celiyo boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow waxaa halkaasi ka hadlay caaqilada bare uqaal waxgarad haween waxaana hadaladoodii ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliland iyo boqor Buurmadow awal waxaan u wadnay inuu Muuse Biixi madaxweynihii yahay isaguna taashkii yahay uu ku taagnaa Muuse Biixi goorma irdadiya bahal gacan saarkii yeesheen buu ina tarbiiri oo goormay kii labada boqnood gooynaya Muuse Biixi iyo kii garbiisa ku sitay maanta midna cagaha loo maydhayo isagoo wuxuu doono ku hadlaya mucaaradka labada boqnood gooynayay kii dusha ku sitay taashka labada garab u saarnaa isaga iyo beeliisi ay maanta god madow galeen taasi waxa weeyaan de Soomaaliland iyo waxgaradkii adduunka dhan u sheegaynaa annana waxaan isku ku arrinkayaga u noqday maanta yaa maxaa naga gaadhay caanihii ilaa niman geel lahaan jirin iyo cidda lama jaraysimo war maxaa naga gaadhay caanihii maxaa naga gaadhay codkii baarkayagu yahay waar codkii iyo madaxweynihii maxaa naga gaadhay waxaan leeyahay waan hadalkayga kaga tagayaa oo madaxweynaha Soomaaliland ka codsanaya waar ha u jilcin yaa ha u jilcin oo ha u jilcin oo ha u jilcin oo ha u jilcaan niman ku furin ayuu ku furi cabashada aan u soo jeedinayna waxa weeye xadhiga Cismaan Buurmadow baanu ka cabanaynaa haddaanu nahay beelaha bariga oo aanu ku hadlayno afka degmada Reeroog annagoo ku hadlayno waxaan leenahay ninkaasu waanu dhageysanaynay dacwadii lagu soo eedeeyay waxay ahayd dacwadda lagu soo eedeeyay war nabadda ha la ilaaliyo ciidamada dib ha loo kala raro taasu wax boqor lagu xidho iyo wax boqor lagu eedeeyo iyo wax la isku eenseeyo midna maaha waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda Muuse Biixi oo hogaaminayo golayaasheeda wasiirada golayaasha dawladda Soomaaliland waxaanu u soo jeedinaynaa in xadhiga boqor Buurmadow laga fiirsado oo si nabadgelyo leh oo codsanaya in Buurmadow la sii daayo waxaan leenahay Buurmadow xarigiisu ma aha mid wadadii sharciga ahayd soo maray xaq buu leeyahay in uu qareeno qabsado xaq buu leeyahay waa laga diido waa laga hor istaagay xukun cadaalad ka fog baa loo adeegsaday aqbali mayno yeelina mayno codsina naga ma aha anakoo ma codsanayno in la sii daayo laakiin waxaan leenahay hala ilaaliyo xuquuqda uu leeyahay boqorku Soomaaliland xukuumadda maanta waxaan ka filaynay awood qaybsi haddii aanu nahay beelaha bari waxaanu ka filaynay saami qaybsi ballaaran waxaanu ka filaynay abaalkayaga inay celiso waxaanu ka filaynay in ay naga qayb geliso xukuumadda la dhisayo waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland waxaanu ka hadlaynaa maanta og taliskii aaga bari waa ciidanka waa qaranka waa og boqorku ciidan ba xukuumadda jaran maaha madaxweynena maaha dawladda Soomaaliland xadkeeda in la gaarana kama soo horjeedno waar been ka soo horjeednaa in sheegaya oo aan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha baarlamaanka golaha guurtida oo aanu ku cambaarayn xadhiga boqor Buurmadow Soomaaliland Buurmadow waa ka badh laakiin kii maanta isagu lagu dacsi lahaa ma aha boqor Buurmadow waa boqorka jamhuuriyadda Soomaaliland Afrika bariga dhexe maynu araga xukun furmar loo yar laan adduunka meel lagu sheegay maanaan maqlin waxaanu leenahay xukunkaasi mid maaha boqorka ku dhacay xadhiga hadda xiran yahayna waxaanu idin sheegaynaa in allaalayo intii boqorku ka mas'uul ahaa bilaadan dooratay inay xiran yihiin arrinta aad lagu fiirsado waxa kale oo aanu ka hadlaynaa
nin xukunka riday oo maxkamadda haystay xalayta saxaafadda wuxuu ka yidhi inta la weydiiyo nin wariyaha waraystay boqorkii miyuu xidhan yahay musuul halka nimca ku jirtaa buu ku jiraa waxaanu leenahay inankaana waxaanu leenahay xadhigga buurmadow iyo hadalkaa tiritoonna haddii ciilqab kaa bile madaxweynaha muuse biixi deelqaaf odhan mayno waa madaxweynihii qaranka waa madaxweynehayagii madaxweyne sida aanu madaxweynenimadooda u ixtiraamayno ayaanu boqorkana u ixtiraamnaa waxaan halkan ugu soo baxnay waanu isugu nimi mujtamac ayaga intan faraha iyo xad leeg iyo in kale oo ka badaniba oo maxaan ku idhahdaayay aan xalayta laga seexan magaaladayada waxaanu isugu soo baxnay oo isugu nimi boqor buurmadow xidhitaankiisa la xidhay ee laga qaaday xorriyadda ee jeelka lagu riday ayaanu isugu soo baxnay oo isugu nimi sidaa darteed waxaanu leenahay mudane madaxweyne haddaad doonto annagana caawanana xidho kama maaranno boqorka kama maaranno xorriyaddiisa in loo soo celiyo oo maxaan ku idhahdaay loo soo celiyo xorriyaddiisa ayaanu u baahannahay rag iyo dumar waanu u guntannahay waanu u dhimanaynaa cabdirasaaq aadan cabdille telefishinka caalamiga star aynaba